Meglio. Ma non ci mai caso. Direkt. Kuwan meesha sawirnaya. Maya, kuwan meesha sawirnaya. Adiga oo saxan meesha. Buonasera. أحمد سال علي، محمد علي وسامة، محمود عبد الوكال، محمود عبد النور، علي صالح عبد الكريم، عبد القادر معه عمر، عبد الرحمن حسين عبدي، محمد آدم حسين حيلة، آدم حسين وسامة، حسن حاج محمد، يوسف علي إبراهيم، رايد نور غافي، علي عيسى سلوى، عمر أحمد عمر، مرايد جلال أحمد، أمان شعالي سمسر، عبد القادر شريف فارح، احمد عمر اسهري، نور علي حسن، محمد آل احمد، حسين حسن علي، حسين موسى. وحا شغلكم مغن فارع وعيد. محمد علي حامد، محمد يوسف احمد، محمود الشريف اسماعيل، احمد عبد الله كعب عبدي، محي الدين محمد كالوي، محمد
علي محمد أحمد عبد السلام حاج محمد عبد الله جاه محمد محمد الشيخ علي منصر محمد علي الشيخ آدم محمد قاني محمد ولد علي فارح نور محمد عبد الصبرية طبعا رمي مدام عجيبتها كل شيء أنا عدنا وتنضمين هذه اللي معنا ده كسر سيدين بلا شعبية سؤالات يا سيدي أنا سيو والله ووحي أنا فكر بني ما كان بني كودي بالسيقظة مركا أي نورتن تاعي عد كسر مركا تبع لو بهلا أنت أنا عد لغالي كودي بالسيقظة عبد الله وحين سؤال أبو شيء خلاص خطر شاء قدومية وحان استاغي arrin socodka shirka saysa dadkuna magaalada jooga ay samada la jiro afartanaya ama marka qaarkood maqan ma suuroobi karto marka wasiiqada la akhriyo ama yaan la akhrin hadday jirin volontaar ama rabid dadka maqan inuu meesha xaadir ku noqdo waxaad moodaa hawshii la wadada oo dhan inay noqonayso hal bacluumis sidaa daraaddeed aniga waxay la tahay xeeroosaadka waana samaysteen baan filahayaa dadka maqan sida xeeroosaadka qabo in loo qoro inay yimaadaan goluhuna hubiyo inay gaaraan waraaqu hadday imaan waayaanna waxay la tahay inay golaha la gudboon tahay in la bedelo markeedaasaan ka hadli doonaa sida loo bedelayo iyadoo aan u arkayno dastuurkaani inuu yahay mid ummadda Soomaaliyeed dan u ah waxay noqonaysaa aqlabiyadda ay danta Soomaaliyeed u aragto inay hawsha ku wado inay noqon doontaa iyadoo weliba sharciga u yaala waa fujinaysa oo macsan horena waa loogu qoray dadka qaarkiis waana u xusnay dastuurkii lagu kordhisi lahaa shuruucda dalka ahamiyada macnaha dastuurku leeyahay baa loo badiyay tirada marka aan waxaan qabaa yaynaan inagu ka raacaynon xagga ha socotada aynu ula jeedada loo badiyo waxaan rabnay haddii aan maadaama ajeedada ay ku dhignayd inaan codkina uusan dhamayn meelihii xildhibaanada ay kasoo jeediyeen golaha shacbiga su-aalaad iyo sixid inaan sii wadno أمام الأمرية
xabsiga ammaankiisa sida aadkaa loo ilaaliyo ee la yidhaahdo community Antonio Maniera oo lagu eedeeyey dacwado la xiriira qoraallo propaganda iyo majaxaabina markii toddobaadkii la soo dhaafay damiinta lagu sii daayay Mr. Maniera waxa uu sheegay in qolkeedii lagu hayay qolkaasi oo ku yaala garabka qaybta dadka waalan lagu hayo ee xabsiga magaalada Nairobi uu sheegay in qolkaasi xabsiga 24 saacadood lagu hayay